بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواد الداوديال برنامجكي مقالك بلشدة oo toddobaadkan aan idinkaga soo tabinaya anigu ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug barnaamijkeena muuqaalka bulshadana waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa warbixino iyo wareysiyo ku aadan xaaladda nolosha bulshada ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo kamida magaalooyinka taariikhiga ee ku yaala deegaan xeebta bariga gobolka Mudug waxana degmada Hobyo ay ku dhawaad 260 kilomitir dhinaca bariga kaga beegan tahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkana ay dhanka waqooyi kaga aadan tahay 620 kilomitir waxa magaaladan oo ah mid qadiimiya ka jira dhibaatooyin la xiriira dhanka nolosha iyo waliba horumaro ku aadan dhanka adeegyada asaaska u ah nolosha bulshada halkaasi ku nool sida caafimaadka iyo waxbarashada haddaba si aan ugu kuurgalno xaaladda guud ee nolosha bulshada ku nool degmadaasi iyo horumarada xilligani ay ku talaabsadeen sanadihii u dambeeyay ayaa waxaan ugu horeyn arintaasi wax ka weydiiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale waxana gudoomiye ku-xigeenku iiga warbixiyay xaaladda nolosha bulshada ku nool degmada Hobyo iyo deegaanada la xiriira xilligani sida ay tahay waa kan gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale oo arrimahaasi ka waramaya ruuxantii hadda hay'adaha ka shaqeeya ama caafimaadka ka qabto aad bay u yar yihiin waxaan codso lahayn maaragtay inay kordhiyaan caafimaadka haddii noqon lahaayeen maaragtay dhan kasta oo caafimaadka maaragtay hay'adda Mercy iyo hay'adana nala joogto dhinaca caafimaadka hay'ado fara badan oo shaqo ku leh ayaa jira ayagana waxaan codso lahayn inay yimaadaan oo la jaan qaadaan degmada iyo waxqabadkeeda marka laga soo tago dhankaas caafimaadka waxa Hobyo ka jiray muddooyinka ugu dambeeyay horumaro dhinacyo badan taabanay sida dhismaha aeroboorka rajo laga qabo in la dhiso dekedda magaalada Hobyo haddii aan ku horumarno aeroboorka magaalada Hobyo haatan xagee ayuu marayaa howshiisa maxaa ka qabsoomay in la isticmaalo aeroboorka ma sha Allah meel wanaagsan ayuu marayaa runtii hadda feeska koowaad waa dhamaaday feeska labaad ayaan rabnaa inaan September dib u bilaawno haddii Ilaahay yiraahdo oo feeska koowaad runtii wax weyn ayuu u taray hadda sala socoto malaaygi argoosatadii passengerkii dhamaan waa ka baxay degmada Hobyo haddii wax u baahdaan dhaqdhaqaaqa maaragtay aeroboorka boqolkiiba waxaan dhigi karnaa waxay kabeen 40 ka dhiman insha Allah wala dhameystiri doonaa aeroboor caalami ah oo noqdaan rajaynaa haddii Ilaahay yiraahdo dhinaca dekedda run ahaantii dad badan ayaa u tartami jiray ama u hanweynaa haddana sala socoto 20ka bisha September soo socoto soo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ballan qaaday inay imaanayaan haadihii wax ka qabalaha koorna insha Allah diyaar garowgii iyo wax qabadkii aan ku jirnaa maaragtay arintaas waa gartay marka arinta kale aan rabin wax ka weydiiyo waxay tahay in qaar kamid ah kalluumaysatada ee magaalada Hobyo aan wareysi la yeelan waxa inoo sheegeen in dhibaatooyin ay ku qabaan maraakiib iyo si sharci darro uga kalluumaysanaya xeebaha dalka taasina ay sababtay in hoos u dhac ku yimaado wax soo saarka kalluumaysatada dhibaatooyin ay geystaan arintaasi maxaa ka jira runtii cabashadaasi waa noo soo gudbiyeen ganacsatada kalluumaysatada ama maaragtay shacabka deegaanka Hobyo arin jirta weeye wixii aan wax ka qaban karnay oo tabarteena ahaa waa ka qabanay laakiin wax badan ayaan noogu dhiman ciidamada NATO waa kala hadalnay dadka illegal fishing ah ama dhibaatada u geysanaya deegaanka inay wax ka qabtaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug waa u jeedina maaragtay inay dardar geliyaan arrimahaas haddii noqon lahaayeen ciidamada marinayska oo run ahaantii la rabay kaalintii ama ka dhineed ama waxyaalaha aayadda ay heeganka u yihiin in loo dhameystiro agabkii ay yiraahdeen waa dhameystireen inaan kaga sugeynay maadaama ay diyaarsayn ciidanka ay joogo tayadii iyo waxqabadkii inay maaragtay maalgeliyaan ama maaragtay wax ka qabtaan aan ka sugeynaa dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka degmada Hobyo waxa ay kamid ah meelaha hoos u dhaca waxbarashada aad uga jiray haatan waxaa suurta gashay in dugsi caalami ah oo saddexa oo ay leeyihiin hirgeliyo kaas oo iska kaashanayeen wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo hay'adda CISB oo ah Talyaaniga marka ka maamulahan maxaa idin qorshaysan dhanka waxbarashada inaad ka qabataan maadaama horey la idinku dhigay maamulka iyo bulshada degmada Hobyo inay waxbarashada ku liidato run ahaantii marka ugu horeyso waxaan rabnaa arinta waxbarashada inaan u bogaadeyno wasaaradda waxbarashada sidii ugu hirgelisay iskuulka weyn caalamiga ah iyo hay'adda JESPA runtii iska kaashaday aad aan u soo dhaweyn waan ku faraxsanahay waxbarashada waa waxa kaliya oo qofka bini'aadamka horumarka u gaaro
caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga hadday isla shaqeeyaan waa horumarka lagu sheegay bulshada ay leedahay marka waxbarashada waa asaasiga koowaad qofka doos waxba aqoon waxba ma qaban karo hore aan ku jirna amniga magaalada maanta 90% waa okay waa ujeedaa magaalada wax problem ama caqabadaha wax ka jira malahan taas ilaahay ka sugo ciidamada qalabka sida ayaa gaarsiiyay iyo shacabka iyo dawladda iyo deegaamada oo isku kaashanaya waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo horumarinta sida maaragtay waxbarashada oo hadda bilow ka ah inay gaari doonto heer weyn ama jaamacadeed ama lagu takhasuso deegaamada Hobyo waana bilow aadan ugu faraxsanahay insha Allah inaan heerka gaarnaan run ahaantii aadan ugu faraxsanahay inay timaado hay'adan maaragtay sayid degmada Hobyo ee gobolka Mudug run ahaantii intii yaradii ay joogtay wax la taaba karaayay sameysay waana ugu faraxsanahay haddaan ka hadlo dhanka caafimaadka dhulka run ahaantii TB-da aad ugu badan tahay muddo dheer aan u baahneen maaragtay dhaqaatiir noocaas ama maaragtay caafimaad noocaas laga qabto ummadda Soomaaliyeed ama qaas ahaan dadka deegaanka Hobyana waxaan ugu baaqayaa maaragtay inaysan qarsan cudurka TB-ga cudurkaas oo runtii la daaweyn karo hadda aan u helna maaragtay daawadiisa in degmada laga heli karo u aadeen maanta gaalkacyo cadaadii meel kale waa farxad weyn oo deegaanka maaragtay u soo yeetay waxa kale ayadana farxad leh maaragtay oo bogaadinayna hay'adda shaqaalaha ay ka shaqeysay haday noqon lahaayeen wardiyada haday noqon lahaayeen nadaafadda haday noqon lahaayeen dhaqaatiirtii runtii intaasna waxay u noqotay shaqo abuur waxaan kale ugu mahadcelinaynaa ay yiraahdeen maaragtay waxaan dhisanaynaa inaan maaragtay dhulkaas runtii asagan waxay noqon doontaa dhul wanaagsan ee dhistaan oo deegaanka wax weyn u tara hadduu Ilaahay yiraahdo aydan waa bogaadin kale marka ka degma ahaan aad baan u soo dhaweynaynaa waana la shaqeyn doonaa hadduu Ilaahay Dr. Mustafa Gabow Ali oo ah agaasimaha xarun caafimaad oo si lacag la'aan ah loogu daweeyo cudurka qaaxada ama TB-da oo iyadu ah mid markii ugu horeysay laga hirgeliyo dhawaan degmadaasi Hobyo waxaan wax ka weydiiyay mar aan ku booqday xaruntaasi caafimaad ee laga hirgeliyay degmada Hobyo adeegyada haatan xaruntu ay u qabato bulshada ku nool degmada Hobyo iyo deegaanada la xiriira iyo tirada kiisaska ay heleen ilaa markii xaruntani laga furay degmada Hobyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin xaruntan waxay shaqo bilowday bishii shanaad 2017 waxaa keenay hay'adda Sayid TB Center ee Beledweyne baranjigeeda kale oo ku yaala magaalada Beledweyne xaruntan markii shaqada ay bilowday bishii shanaad ilaa bishii lixaad waxaan qabanay bukaano gaaraya 21 oo positive oo laga helay cudurka TB-da pulmonary extra pulmonary 8 caruur iyo 3 oo dad waaweyn bishii lixaad waxaan qabanay 29 kiis oo 320 ruux la baaray 29 qofood waxay noqotay positive 6 waxay noqotay extra pulmonary 5 caruur runtii meeshaan weligeed TB lagama furin waxay iska yahay xarun macnaha iska meel iska TB-da problem aad ugu jiro oo dhibaato problem xagga TB-da aad u qabtay runtii macnaha markaan furnay dadkii bulshadii aad ugu deersadeen maamulka deegaanka degmadana aad ay noo soo dhaweeyeen waxayna siiyeen dhul waxayna siiyeen meel aan ku sii shaqeysano inta macnaha aan howleena kala aan ka qabsanayno marka maasha Allah runtii dadkii waa ku liibaaneen aad bay ugu liibaaneen waayo dad xanuunsan oo u baahan xanuunka cudurka TB-da la jiifo ilaa muddooyin la xanuunsanaa oo muddooyin macnaha dhibaatooyin haystay oo dhib macnaha wax daawo la'aan macnaha ka jirta gaalkacyo ayaa ugu dhow 200 kilomitir hadda laakiinse waxaan ugu limid meeshii ay deganaayeen hay'ad Sayid maanta ka gaarto ilaahay maadaas kale iyo madaxda kale mas'uuliyiinta kale oo maamulka runtii baahi caafimaad ayadoo ku jirta nimid runtiina aad baan u xalinay maalin walba bukaanadaas iyo konton iyo dhowr qofood subax walba way yimaadaan dowladka loogu talagalay sidoo loogu talagalay ay u qaataan subaxdii xarunta ay yimaadaan subaxna ay morning ayaan siinaa daawada doctor dadka cuduradaas TB-da aad ka hesheen qaabka ay daawada u siisaan ma la jiifiyo oo meesha ay daawada ku qataan mise way soo doontaan mise daawada wada siisaan may daawo ma la wada siiyo sharciga caafimaadka wuxuu dhigaa qofka in subax walba uu yimaado qofka positive-ka subax walba doosidkiisa loogu talagalay subaxdii uu yimaadaa annaga horteena ku cunaa kliniga wax dibadda uu qaadanayna male wax habeeraatay mana dibadda loo qaato male sababtoo ah waxaan ilaalinaa qofkii inuu MDR laga noqdo bukaankii haddii daawo la siiyo oo meel kale u qaato waxaa macquul inuu daawadii u socon balse
hadda waxaan anaga u talagalnay macnaha in xoogga aan saarno qofkii doosadkiisii inuu anaga horteena ku laqo si aan anagana ugu warqabno inuu kaniinigii macnaha u laqay waa tahay maamulka degmada Hobyo sidee idin la shaqeeyeen maadaama ay tahay xarunta ugu horeysay ee TB-da ee laga hirgeliyay degmada Hobyo wallahi maamulka Hobyo waa mahadsan yihiin runtii aad ay noo soo dhaweeyeen mahadaha ka gaarto alxamdulillahi rabbil caalamiin dad wanaagsan ayaa meeshaan ugu nimid maamul fiican ugu nimid si fiican loo soo dhaweeyay waxaana la dejiyay guri dhul 30 lagu dhiftay 30 waa la siiyay waxayna dhahnista bisha hadda soo socotaan dhisanayna dawladmo dadka runtii way mahadsan yihiin sababtoo ah gacan bay nagu siiyeen waay baahida caafimaad ka jirta ayaga oo deegaanka macnaha in xarun TB aan weligeed laga furin ayaa qof dadkii ugu hay'adii ugu horeysay oo ka furta anaga ayaan noqonay anagana waxaan ku guuleysanay in dadkii deegaanka macnaha baahida TB-di oo meelaha ay aadi jireen meelaha fufuk qaarkood xamar aadi jireen qaarkood ay u dhimay jireen cudurkii inaan ka badbaadino waa tahay daawadayaal waxaan weli bartanka uga jirnaa barnaamijkeennii muuqaalka bulshada oo aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed kaas oo aan idinkugu soo baahinayno xaaladda ay ku nool yihiin bulshada degmada Hobyo iyo dhibaatooyinka xilligani ka jira degmada qaar kamida maamulka iyo bulshada degmada Hobyo ayaa iyaguna waxa aan wax ka weydiiyay dhibaatooyinka la xiriira dhanka ganacsiga nolosha iyo waliba abaaraha ka jira deegaanada hoostaga degmada Hobyo iyo arrimo kale oo khuseeya kalluumaysiga sharci darrada ee ka jira xeebaha degmada Hobyo iyo dhibaatooyinka ay kalluumaysatadu ku qabaan maraakiibta sida sharci darrada uga kalluumaysanaya xeebaha dalkeena haddaba waa kuwan qaar kamida mas'uuliyiinta maamulka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo arintaasi inooga waramaya arxim waa maxaa cali guure madaxa mashaariicda degmada Hobyo bulshadu waxay ku yeelatay lacagtu wax hadda la qaato ma jiraan lacag Soomaaliga waa la diiday dhibaatada jirta waxa weeye dadkii oo dhan lacag Soomaali waa ka dhaarteen qof walba dollar aan rabaabay yiri dollarna magaalada ma yaalo oo waxa weeye dadku Soomaali u qaata waxa la arkaysaa qof 100,000 Soomaali wata oo rabaha ninkuu ku gato koomba digira aba ku gato kiilo bura laga gado waayo qof walba leeyahay fisbalaas dad haysan la laabo dhibaatadaas magaalada ka jirta waa gartay marka saameyn ay ku yeelatay nolosha dadka xamaaliga ama rumalka ama ganacsatada maxaa nooga sheegay saameynta ay ku yeelatay marka laga reebo intaas yarta aad noo sheegtay wallahi saameyn weyn bay ku yeelatay waxa iska hortay magaaladii in qof lacag milyan haysta inuu dib jiro qof lacag 500 haysta inuu dib jiro qof alla qofkii Soomaali haystay waa dib jiray waxa timid dhibaato weyn baa tii dadkii waa iska hor yimaadeen wax Soomaali oo la qaatana ma jiraan dadkii dollar buu qaataa magaaladii oo dhanna waxa ka timid hadda xaalad xun baa lagu jiraa Hobyo hadii laga warramo xaalad xun bay ku jirtaa hadda dhanka abaaraha wali waxa ka jira degmadan Hobyo deegaanada abaarahaasi haatan halkee ay gaarsiisan yihiin saameynta nolosha dadka abaaru haystaan inooga warbalada maamulka abaaraha galmudug meel kasta meel galmudug inta galmudug oo dhan soona Hobyo oo dhan ilaa galmudug meel abaartu waa jirtaa abaaro badan baa jira dadkii xoolihii waa dhaafeen dadkii xoolihii ay dhaafeen oo reebaadiyaha markay soo xaroodeen qof waxa arkaysa lacag yar oo meesha uu jirta markuu Soomaaliya la soo tagay magaalada wax loo gado waayay xoolihiina baabeen Soomaaligana waa lagu nacay xoolihiina waa dhamaadeen wali galmudug abaartu ku dambaysa dhanka ganacsiga magaalada maxay ku tiirsan tahay wallahi dhanka ganacsiga waxay ku tiirsaneed magaaladu badda ku tiirsaneed baddiina hadda wax ka socdo ma laha libaaxi waa joogsaday argosay waa joogsatay kulli waa la joojiyay waxa weeye xagga laga nacay waxaana keenay dhibaatada maraakiibta waxay qaadaysaa malaayiyo nool waxay qaadaysaa libaaxiyo nool argostadii nool ay qaadeen wadamadii bay geeyeen wadankii marka sidaas ay ku joogsadeen kheyraadkii wax hadda badda laga shaqeeyo ma jiraan markaan Maxamed Hobyo waxa ay kamid ahayd baa la oran jiray in ay kamid tahay meelaha hoyga waa burcadbadeeda arintaasi maxaa ka jira hadayse ahaydna haatan saameynta iyo deegaanka ku yeesheen burcadbadeeda ilaa meesha ma joogaan ilaahay waa naga suuriyay dadka xumaatada wada burcadbadeed ku tilmaamo Hobyo meesha ugu nabadda badan loo weeyay waxa weeye waxa waa dad dhaxmartid 7 saac 5 saac martid 6 saac minoo martid bataatan wax burcadbadeed ilaa ma joogaan meeshaan Maxamed haatan waxa socda dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Wisil iyo Hobyo oo 60 kilomitir inta badan haatan la soo dhisay dhismaha wadadaasi horumarka ganacsi iyo dhaqaaq ganacsi ee magaalada muxuu ku kordhin karaa wadada haatan la sameeyo wallahi wax badan buu ku kordhiyay wadadu waxa weeye magaalada way soo gashay
baabuurta yararka ahayd oo aymaan jirin sida caasiyaasha kale sida baabuurta ka sii yar baa timaada maalin walba way soo galaan waxaa laga dareemayaa hadda abaartii dadku markay ku dhaceen waxaa hadda xoogaa kor u soo waxeeyo oo wax yar hadda la soo ordo qofkii wax u keenaya caasiyaasha ka jira wadaduna aad bay u soo socotaa waan ugu soo socotaa waan noo imaanaysaa haddii ilaahay ka maamul ahaan dowlankii ayaa ka qaadateen ama idinkaga qorsan aad ka qaadataan dhismaha waddadaas dhismo xoog laan ka qaadanayna deegaanka hobyo haddaan nahay waxaan rabnaa awoodda inaan saarno waxa weeye wadnihii wey waddadu waa ishii magaalada waa dhaqaalihii magaalada waa bilicdii dadka soo koraya weeye waddada si weyn baan rabnaa awood qayb qaadana haddii ilaahay sharif waxaa ka warantaa saamaynta abaaraha iyo haatan xaaladda abaaraha ee gobolkan ama degmada Hobyo deegaanada ku xiran sida ay tahay abaartu aad bay u kulushahay Soomaaliya markii la fiiriyo meelaha ugu daran baa maanta ku jirnaa aad baa abaartu miyiga iyo magaalooyinka ay meelaha aan distu ka oran baa wadankan ka mid yahay Hobyo hadda aan joogno waa gartay marka gurmadidii hay'adaha samafalka iyo caawinaadii loo fiin dadka abaaraha saameeyay ama abaaraha ku xala belay haatan halkee marayaan gurmadkii iyo abaarihii uu joogsaday xageena wax Soomaaliya iyo aadihii iyo wixii wax wado dhanba mar alla markii abaarihii Soomaaliya ay qaybihii maamul goboleedyada iyo caradii kale wax ka dayeen dhinacii abaaruhu ku haray gurmadkii looma soo celin oo lama oran meeshii abaartu ka hartay maanta isku rogmano hal mar Soomaaliya markii roobku uu ka dhacay meelaha qaarkood meelihii abaarta waa la hilmaamay ama dadkooda iska afyaraayeen ama maartay xeebaha oo cirfka aad u fagaa hay'aduhuna dhulka fafag iyo maartay maamuladu dhulka maartay magaalooyinka waaweynka maanta dadku jecel yahay dadkuna wuxuu ku baabay miigi iyo meelihii fagaa waa gartay marka maxaad hay'adaha samafalka dawlad goboleedka iyo federaalka ama gurmadka abaaraha qaranka ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqaynaa maanta abaaraha maamul goboleedkan hadda dhulkaan joogno ka mid galmudug abaarta maanta ku hartay hadday dawladda galmudug tahay madaxweynaheeda iyo mas'uuliyiinteeda iyo dadka kale oo nimanka kale oo deeq bixiyaasha kale oo Ilaahay baa deeq bixiyay iyo maamulka federaalka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo aad mas'uuliyadooda haysaan meel alla meeshii abaarta ku hartay inaad u gurmataan oo baaq waxaan u jeedinaynaa guddiga abaaraha oo Sheekh Nuur Baaruud Gurxaan iyo kamid yihiin inay ka gaarsiiyo idaacaddu naga gaarsiido abaarta inay guddiga meelaha dhibaatadu ka jirto oo lagu baabaasan yahay in maanta dhaqaalihii meelaha roobka kule loo diri jiray iyo carada la isku soo rogo si dadka maaragtay wax loogu qabto waa gartay marka abaarahaas iyo xaaladda aan ka tagno waxaa jira caqabado kale hor leh sida isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo goboladan dhexe qaarkeed laga diiday degmada Hobyo ay ka mid tahay marka arintaasi saameyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga degmada Hobyo iyo nolosha bulshada danyarta ay hore ugu tiirsanaa isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga maadaama dadku aysan hore u haysan dollarka ama lacagta Itoobiyaanka oo gobolada dalka qaarkood haatan laga isticmaalayo aad bay noo saameysay Soomaalidu waxay ku maamulada xagaaga dadka xeebaha degan xagaaga waa faqri waqtiga meeshaan waxaan joognaa xeeb u xagaa laba ciladood baa timid sarifkii abaartii caadiga ah rabaaniyada iska jirtay abaar kale oo lacageed oo shilinkii Soomaaliga aanu Soomaaliyaana Amerikaanna maahin Soomaaligeena ay la nacay oo saddex meelood intaas meelood loo kala rooliyo tan waxa iska maamul goboleedkaas tan waxa iska madaxweynaha noocaas tan waxa iska meelaha dadkii wuxuu ku baxbaabay madaxweynaha tiisa lama rabo iyo taas maamulkooda lama rabo iyo taa lama rabo saasa loogu baabay badana abaaraheedii dhibaatooyin baa ka dhacay dhibaatooyinka waxa kamid ah waxa alla wixii ka soo baxayeen inay diideen wadamada Hong Kong loo qaadi jiray libaaxii dhagtii la diiday cadkii Kenya loo dhiibi jiray la diiday wax soo saarkiina badii laga soo baxay marka dhibaatooyinka jirta tii abaarta iyo tii badda wixii awal la iska yaraayn wixii soo baxana la gada waayay iyo shilin Soomaaligi oo liiri reemiyigi iyo dadkii magaalada jooga liiri wax shilin Soomaali qaadamayno waa hal mar albaabada dal isku dhufto la doolar wadanka kuma jirin waa gartay dhanka kalluumaysiga hadaan u leexano waxaa muddooyinkii u dambeeyay jiray in maraakiib si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha dalka ay ku badnaayeen deegaanadan hoostaga degmada Hobyo laga soo bilaabo min Xaradheere ilaa Galhagoog marka arintaasi haatan halkee ku dambeysay saameyn ay ku yeelatay kalluumaysatada haddii ay weli sii socoto arintaasi saameyn badan bay ku leedahay kalluumaysatada wax alla wixii maanta Soomaaliya laga qaadi lahaa adduunkiya asagu iska gadatay Soomaaliya u qaaday suuqyadoodii u geeyay
wixii yarkaa Soomaaliya la geeyana waxa la yiri ma rabno saameyn weyn bay ku yeelatay maraakiibtu way ku jirtaa waa laga soo cararaa shanaagaha ka goostaan iyadoo saameyntaas ku jirtaa suuqiina hadii la guuriyay la isku galayo suuq laga joojiyay waxa la dhibaaxa ugu qaalisan oo waaweynka maanfooska iyo liiraado markii la geeyo Hong Kong nimanka ganacsatada geeyay albaabada la isku dhuftay laabtooda wixii waa la dhaxay Sharif waxa jira degmadan Hobyo waxa muddo lagu tirin jiray inay kamid ahayd deegaanada hoyga oo ah burcabeeda Soomaaliya walow haatan aysan ka jirin arintaasi marka bulsho badan ayaad ku daawanaysaa ama caalamka ka daawanaysaa maxaad bulshada Soomaaliyeed uga warbixin lahayd arintaasi halka ay ku dambeysay iyo saameynta ay burcadbadeednimadu markii hore ku yeelashay nolosha deegaanka iyo kalluumaysiga badda horta magaalada Hobyo hoygeeda marna burcadbadeed hoygeed ma noqon laakiin dadka Hobyo nacab ayaa waxay meeriyeen hoy inay u tahay Hobyo burcadbadeed marka waxay ahayd burcadbadeedu meelaha maraakiibta lagu galagadi jiray meelaha adduunyada ka jirta waa la yaqaana mana lagu soo celcelinayo waxa lagu soo celinayo Hobyo in dadkeedu cadawgeedu iska badan yahay horumarkeeda dadku diidan yahay saas hoyga lagu soo celin jiray marna aan hoyga ma noqon dadkeena haddana Ilaahay maartay uu naga suuliyay imaan dhalinyarada iimaanka la galiyay wixii ay imaan ka maqnaan caradaas lagu qaarkood ay maartay lagu qabtay iyo waxa naga hadda Ilaahay waa naga suuliyay wax ka dhashana waxay ahaayeen kacdoon hadii la guuro yahay xabeena maartay dhibaatooyin lagu sameeyay meeshaan waxa weeye anigoo ah magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Maxamed Cilmi waxaan sheegayaa dadka u sheegayaa oo idaacadaha u sheegayaa oo dadka muslim iyo dadka wax qabtay u sheegayaa dhibaato weyn oo ka jirta Hobyo iyo agagaaradeeda inta magaalooyin laga xukumo magaalooyinkaas oo 100 magaalo gaaray waxa wadankaas ku dhacay dhibaato weyn oo saddex geesooda waxa u horeysay abaar weyn oo dhowr sano qaadatay oo xoolihii baaba'een oo geeli dhamaaday oo ladii dhamaatay oo arigii dhamaaday oo dadkii hadda uu liito abaartaas dadkii ku dhacday oo wadanka ku habsatay ka bacdi waxa dhagay badii khayraadkeedii oo markii hore ayadana laga waayay oo marka maraakiib shisheeye ay dhamaysatay oo laga waayay wixii yaraay oo la helayna suuqyada adduunka siidadaha ay ka dhaceen oo la gadan waayay labadaas dhibaato dadka ayagoo qaba waxa dhibaato saddexaad ku noqday lacagtii wadanka laga qaadan jiray Soomaaliga ahayd oo la nacay oo iyaduna ay dhacday dadku dollar ma haystaan Soomaalida waxa jira wadadan dollarka dhagaxda kala aqoonba wax yar baa dadka dollar ka yaqaan milyan dollar laga yaqaan tuulo dhan dollar laga yaqaan shilin Soomaaliga laga isticmaali jiray shilin Soomaaliga ugu dhac dadkii marka waxa weeye shilin Soomaaliga dhacay xoolihiina ay ka baabeen dollarna aan haysan ganacsina aan ahayn hay'adana aan u shaqayn dhibaato weyn baa dadka la soo diristay Yuusuf Cigaal jaamac baa la yiraahdaa Hobyaan deganahay dadka muqmaalka ayaan ka mid ah dhibaato weyn baan ugu haysaa koobka shaawa gadan weyn qof walba wuxuu leeyahay FC keed qof walba FC ma hayno marka dadkeena macnaha aad u liita waaba aad baan baaba'sanahay oo macnaha waxa weeyaan lacagtii boona la ka qaadan waayay ma garata marka hadda markii aad xamaashaan ama dadka shaqo u qabataan maxaa ka qaadataan waxaan ka qaadanaa dadna waxaan ka qaadanaa lacagii horeeto oo macnaha xamar ka yimaada dadna waxaan ka qaadanaa FC marka saameyn aankii ay noloshina ku yeelatay saameyn xoog leh ugu haysaaba saameyn xoog leh xagga qudaarta xagga waxyaalaha yarka oo qofku bani'aadamku u baahan yahay macnaha waxa weeye saameyn weyn bay ugu haysaa markaas Raxmaan Raxiim anigoo ah Milyan Aadan Maxamed waxaan sheegayaa lacagtu inay nagu yeesheen saameyn xoog leh saameyntaas oo ay ka mid tahay dadkii danyarta ahaa iyo dadka xamaalatada alaabta markay baabuurta nooga dejiyaan ama ay tunkooda ku xamaashaan ama dhuxushoo kale ay guryaha noo geeyaan lacag cad baan siin jirin lacagtaas bayna wax ku gadan jireen oo nolol maalmeedkooda ka raadsan jireen haddana lacagtii ayaguna way diideen annaguna lacagta caddayd markaan weyn baalka ay naga diideen TFC-ga baan weyn dhibaato badan bay nagu saamaysay anigu hadda waxaan gataa miiskan iyo dukaankan alaabta badacdo ii taalan lacagta cadna waan qaataa midda xamar waan qaataa midda TFC-gan waan qaataa duruuftaas ugu kalifantay inay wax walba isku xirmeen xabadda maraq tubada 2,000 oo shilin ama 1,500 markaan gado TFC maxay ka noqon karaa waasa waxaa ka mid ah iyadoo la ka diiday lacagta shilin Soomaaliga ahay oo waxaan ku gadanay aan la arag reer miyi iyo reer magaal hadaan nahay oo xoolihii la iska cesho dadkii oo baahan dadkina gaajo u baabay qofkaad u tagtaan uu leeyahay waxaan dollar ka gadanayo mana bixinayo dollarka ma haystaan marka ma haysano
دولار نويا لا نرى بادية مساكين يقف مقالة جوكتا مساكين دولار حقوق أمانية لباب بلاد دكان كان شغل والله ماشينا لقى قدر وحوي أنك لعقتها ورثتي وكأي جوابي يا وحوي لعقتهاس markii ay ka baxday oo la qaado maayo leeyahay dadku waxay noqdeen nin aan hadii ninkii hadii wax meel wax u yeeleen oo baqaar ama dukaan la maahan dadka kala saasay hadda maxaa wax ku kala iibsataan marka waxa weeyaan hadda gabadha markaysa gabadha malayga iibiso ad markii ay dadku ka qaato si hadda waxbada u qaadanayseen waa FCC diintu ay leedahay lacag wax lacag oo ka socota laba arko markay lacagtii baxdayna dadka curiyaan u noqdo nanka nolosha marka bulshada degmada ayaan saamayn ka arrintaas ku yeelatay waxay ku yeelatay wax aan la soo koobi karin waxaan soo koobi karin waayo lacagtu waxa wax socodsiinayay lacagta qofta haday maanta 100 kun qaadato magaalada uga soo adeegato hadii la ku leeyahay way ku haday ciyaal leedahay oo dad xaas yihiin way ku liibaan jireen waxay ka wafaajin lacagta laga qaadanayo marka degmada Hobyo sidaad u jeedaan waa magaalo qadiimiya kuna taala xeebta badweynta Hindiya waxaana ay dhanka bari ka xigtaa magaalada Tangaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ilaa iyo ku dhawaad 260 kilomitir waxaana magaalada haatan laga dareemayaa inay ka soo kabsanayso arrimo fara badan oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka taas oo ah mid inteeda badani ay gacan ka geysteen wasaaradaha ay qusayso iyo hay'adaha gargaarka iyagu caawinaya waxaana bulshada haatan ku nool degmadaasi Hobyo ay yidadiilo ka muujinayaan dadaalka dhanka waxbarashada ee loo tallaabsaday taas oo muddooyinkii u dambeeyaba qayb ka ahaa dadaalada ay wasaaradda waxbarashada Galmudug ka wado deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug guud ahaan daawadayaal barnaamijkii muuqaalka bulshada oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda nolosha bulshada ku nool degmada Hobyo inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamij midkan la mid ah intaan ku kulmi doonana anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh